dalweynaha Shiinuhu wuxuu calankiisa casaanka ah ee shanta xidigood ku yaaliin markii ugu horeysay ka qotomiyay dayaxa. Dhacdadani ayaa imanaysa muddo ka badan 50 sano kadib markii Mareykanku uu calankiisa xidigaha iyo liidadka badanba leh ka taagay dayaxa. Warfidiyeenada ugu waaweyn dunida ayaa baahinaya sawirro ay qaaday waaxda maamulka hawada Shiinuhu iyadoo aanay markani ahayn markii ugu horeysay ee uu Shiinuhu isku dayo taagista calankiisa ee dayaxa. Laba jeer oo hore ayuu Shiinuhu isku dayay inuu dayaxa ka taago calankiisa, balse howlgalladaasi ayaa noqday halbacaad lagu lisay. Sanadkii 1969 iyadoo la fulinayo dardaarankii madaxweynihii Mareykanka John F. Kennedy, kaas oo ahaa inuu Mareykanku noqdo dalkii ugu horeeyay ee dayaxa taga, Apollo 11 waxay noqotay wixii ugu horeeyay ee uu bini'aadamku sameeyay ee dayaxa ku dega, halka uu Neil Armstrongna noqday bini'aadamkii ugu horeeyay ee cag saara isla markaana ku dul socda dayaxa. kadib dhacdadaasi sanadkii 1969 Mareykanku wuxuu 5 jeer oo kale calankiisa ka taagay dayaxa ilaa sanadkii 1972 waxay ahayd sanadkii 2012 markii hay'adda Mareykanka u qaabilsan hawada sare ee NASA ay soo bandhigtay sawirro ay ku sheegtay inay yihiin calamaantii berigaasi laga taagay, kuwaasi oo weli sidii u taagnaa inkasta oo midabada calamadu ay isku bedeleen caddaan sababo la xidhiidha kulaylka qorraxda darteed. guushani uu Shiinuhu ku guuleystay inuu calankiisa ka taago dayaxa ayaa ah mid weyn oo muujinaysa koritaanka xawaaraha sare ku socda ee dalkani ku yaala qaaradda Asia. Warbaahinta dunida qaarkeed ayaa ku waramaysa in dhararka calanka uu Shiinuhu dayaxa ku xabaalay dhan yahay 90 sentimitir halka ballac ahaanna uu yahay 2 mitir. Chan Chang oo horumarinta u qaabilsan mashruucan uu Shiinuhu dayaxa ku tagay waxa uu sheegay in calanka qaranka ee caadiga dhulka ku ahi aanu ku badbaadayn jawiga qallafsan ee dayaxa. ku degista dayaxa ee Shiinaha ayaa ah tii saddexaad muddo 7 sannadood gudahood ah, taasi oo Shiinaha ka dhigaysa dalkii labaad ee calankiisa ka taaga dayaxa. Axmed Maxamuud Yuusuf, Telefishinka Saab.